بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان أمة الصوماليين مركزات شوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أمة الصوماليين وباقينا بريتو وبشوي تاي طبعا وأحدا برنامجيدا iyo barnaamijyada magaalada ka jira. waxaan doonaynaa inay ahaadaan kuwo nabadeed dadweynuhuna ay feejignaadaan oo ay guryahooda ay ku sugnaadaan. barnaamijkaas wax kastuu noqon karaa barnaamij nabadeed ayaa loogu talagalay. waxaa laga rabaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka feejignaato waxyaabaha lagu hoos qarinayo magaaladan amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo bilicdeeda inaan wax loo dhimin haddii aan la yidhaahdo dadkana aan lagu khaldin oo aysan ku kadsoomin in barnaamij inta marka hore loogu yeero si qaldan loo isticmaalo. dadweynaha Soomaaliyeed khaasatan annaga odayaashii xaafadan ee degmada Hodan khaasatan eeriyada hadda aan ka hadlayno waxaan rabnaa inaad isku ilaalisaan nidaamkiina iyo nabadgelyadiina iyo amnigiina aad ilaashataan guryihiinana aad ku sugnaataan aad iska ilaalisaan khaladaadka laydin horseedi doono insha Allah magaalada iyo ganacsigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo bilicdeeda iyo amnigeedana la ilaaliyo. dalku waa nabad amni buu ku sugan yahay nabadgelya lagu joogaa nabadgelya dadku ku shaqaystaa nabadgelya lagu seexdaa lagu soo toostaa. dadweynaha iyo waalidiinta waxaan u sheegaynaa inaad dhallinyaradiina iyo carruurihiina aad ceshataan haddii aan la yidhaahdo guryahooda ay ku sugnaadaan oo aan haddii aan la yidhaahdo aan wax maaragtay khalkhala aan laydin gelin iyo gurbaan beerana aan laydin tubin. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum.